martida sharafta leh ee halka isugu timid ee quruxda badan ee odayaasha leh oo haweenka leh oo dhalinyarada leh mar labaad waxa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah walaalayaal dadka maanta saa u qurux badan ee jecel inay aayahooda mustaqbalka dambe ka tashtaan waa dad shucuurtooda aad dareemi kartid inay doonayaan inay dad noqdaan waqtigii tegayna ka tegay waqtiga soo socdana inaan ka faa'iidaysano muhiimadda aan meeshan maanta isugu nimid waxaan u malaynayaa odayaashayna inay dhan yihiin gabdhahayna maanta ay joogaan kaalintooda mar walba way banaanaan jirta laakiin maanta waxaad moodaa inay xoolaha meesha kaalintooda ay buuxdo waa ku maadsan yihiin waana rajaynaynaa inay sidaan si qurux badan ay u yimaadaan waxaan kaloo halkaa ka salaamayaa dhalinyarta sharafta leh ee hadalkayna soo ajiibtay ee noo timid ee sida sharafta leh noogu timid ee doonayaan waxa meeshan ka dhacaya ee go-aan la gaaray inay guryahooda kula noqdaan ee reerahoodii iyo ciyaalkoodii ay gaarsiiyaan waxaan kaloo halkaa ka salaamayaa 13 oday ee sharafta leh ee beelaha jarar weyne matalayo ee gobolka nugaal ee maanta sida quruxda badan halkaa ugu soo xaadiray iyagoo diyaar u ah xilkii ummadooda ay saaratay inay qaadaan waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin annagu dhibaatada ayaa naga badatay ma lahayn odayaal hawshayna si toosa u qaabila hadday tahay xagga dowladeed iyo hadday tahay xag gudahayna reer walba oday buu samaystay laakiin odayaal guud annaga ma lahayn maalmo dhaweyto waa fikirnay waa dadaalnay dhowr dhalinyaraan samaynay waxaa noo soo baxday oday la-aan inaanan waxba wadi karin saa daraadeed baa dadku waxay nagu kaliftay odayaashayni inaan mid u raadino oo mid walba aan wax ka dhaadhacsiino si aan u midowno oo dhibkaynina haddaan dhib geysana aan iska bixin karno haddii dhibna loo geystana aan doonan karno kayna xun iyo kayna sanna aan dadka ka dhex galan karno taas ayaa kaliftay inaan 13 oday aan dooranno oo aan samaysano guddoomiye ku-xigeen xog hayn xalay ugu dambaysayna waxaan ku fikirnay inaan samayno guddoomiye xalinta khilaafaadka waxaa weeyaan ummadayna markay dad istaabtaan inaan annaga guddi odayaasha ka mid la dhihi karo arrinta ay xalin karaan guddoomiyaha qowmiyadda beesha jabarwey waxaa loo magacaabay cabdiqaadir cali maxamed injineer cabdiqaadir kili ku magacdoo gudoomiye ku-xigeenkayga ee beesha jabarweyne waxaa loo magacaabay bila sari cilmi gudoomiyaha xoghaynta waxaa loo magacaabay cabdinaasir cabdulle xasan waxaa qodobka afaraad aan magacaabnay muuse cismaan xaraale oo aan u magacaabay gudoomiyaha xalinta khilaafaadka intaa waxaa kasii hooseeya odayaashii kale ee iyaga intaas la shaqeyn lahayd waxaa ka mid ah samey cismaan mursal xuseen axmed islaam iyo maxamuud cismaan maxamed ugaas nuur ugaas aadan calays iyo waxaa kaloo magacaabay keero baaxeed muumin iyo cabdi raabi xuseen iyo xasan yuusuf geeto oo xasan waxaa kaloo magacaabay sheekh cali maxamed cali waxaan malayaa odayaashaas maanta inay goobta xalan ku yihiin loo qof keliya ay ka maqan tahay nin waxaa weeye xasan yuusuf geeto oo cudur daatay ninka labaadna waa sheekh cali waa ninka soo jeeda beesha eelo oo aan malaynaya cudurka jabarweyne leeyihiin isagana wuxuu yidhi waa imaanaya waa maqan yahay marka waxaan rabnaa qodobadii odayaasha aan u dooranay iyo baahida odayaasha in loo dooto keentay inaad nala ogaatiin idinka si aan wax walba ula socotaan wixii loo magacaabo odayaashaas iyo hawshay qaban lahaayeen inaad ogaataan idinkana mas-uuliyadda idin saaran ka shacab ahaan inaad gudataan inaan dhinaca kasoo wada jeysano hadday dowlad noqoto hadday shacab noqoto dad isku xiran oo isku fikira inaan noqono annagoo aan ururka dhalinyarta beesha jabarwey waxaan halkaan ku cadaynaynaa inaan soo qornay 11 qodob qodob oo ah qodobada ugu muhiimsan ee dhibka ah ee soo noqnoqda qodobka koowaad waxa weeyaan ay hawsha odayaasha ay qabanayaan haddii annaga aan dil geysano ama annagana loo geysto inay hawsha odayaasha ay ka daba tagaan waa qodobka koowaad
haddii hanti annaga aan leenahay la qaato waxaanu malaynayaa gobolka nugaal guryahan ku leenahay dad badan ayoo waxba lahayn yimid baa jira guryaanu leenahay baabuur baanu leenahay ganacsataanu leenahay haddii hantidayni la qaato ama gawaari annaga leenahay shil ay geystaan ama xoola annaga leenahay la dhaco inay odayaasha ka daba tagaan hantida ay soo dhiciyaan waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye haddii qof qoomiyadda ka mid ah oo gurigiisa lagala baxo habeen madow ay ciidanka haystaan ama koontaroolka lagu xirto inay odayaasha ninkaas xaq iyo xaquuqiisa ay soo dhiciyaan ee arrinkiisa ay dabagalaan qodobka afaraad qaabka dhaqaale ururinta ee ummadayna dhaqaalaha looga soo ururinayo dhaqaaluhu waa arrinka koowaad ee annaga na midayn karo ee wax walba noo qaban karo dhaqaala haddaan la haynin odayga aan dirno ma shaqayn karo odayga wuxuu u baahan yahay bilbeer buu u baahan yahay biil buu u baahan yahay biyacabaal buu u baahan yahay baabuur buu u baahan yahay odayaasha waxay u shaqaynayaan waa annaga dhaqaaluhu waa qodobka ugu muhiimsan in qodobka afaraad wuxuu taabanayaa in dhaqaalaha cidda mas-uuliyadda loo saaray inay soo ururiso ciddii dhaqaalaha ka hor timaadana tallaabo midaysan in laga qaadi doono waa qodobka afaraad qodobka shanaad wuxuu sheegayaa odayaasha howlaha gudanaya odayaasha loo doortay inay hawsha gutaan